السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهالكن إذن كل فاقا واربحين إيا تلوين لا حريرة فيروس كورونا أو أي صوت ديارسي هاي عافيمادك ee Norway oo la dhaho FHI oo walibana af Soomaali ah. Waa muhiim in talooyinka la qaato si uusan xanuunku u faafin. Fiidiyowga dhan daawo dadkana uga faa'iide oo share garee daawasho wacan. corona ee cusub COVID-19 baryahan waxaa aad loola socdaa fayruska corona ee cusub. Cudurka COVID-19 waxa uu inta badan keenaa xanuun fudud. Dadka qaar gaar ahaan dadka waaweyn ama kuwa xanuuno kala qaba ayaa aad u xanuunsan kara. Sidaa darteed waxaa muhiim ah in qof kasta uu ka qayb qaato sidii loo hakin lahaa in cudurku bulshada ku faafo. Haddii aad qaaday cudurka, waxa ay qaadan kartaa eber ilaa 14 maalmood inta aad dareemaysid calaamadihiisa. Inta badan waxa ay qaadataa 5 ilaa 6 maalmood. Marka uu qofku qabo calaamadaha cudurka ayay ugu sahlan tahay in cudurka la isqaadsiiyo. Qandho, xumad, qunfac iyo neefsashada oo cuslaata ayaa ah calaamadaha inta badan la isku arko. Dadka in tiradoodu yar tahay waxa ku yimaada caabuq ku dhaca sanbabada oo ku keena neefsashada oo ku adkaata ama xanuun kale oo daran. Waa in aad samaysid waxyaalahan si aad uga hortagtid qaadista cudurka. Ka durug dadka. Guriga joog haddii aad dareemaysid xanuun. Guriga joog haddii lagu sheegay ku jirid karantiino ama gooni u bixid. Isku day in aad 1 mitir ka fogaatid dadka kale haddii ay suurtagal tahay. Ilaali nadaafadda gacmaha. Gacmaha si fiican u dhaq marar badan. Marka aad dibadda la joogto dad kale, markaad isticmaashid musqusha, marka aad qunfacdid, hindhistid ama sanka iska siimaysid, marka aad rabto inaad cunto samayso ama inaad cuntaysid. Haddaad haysan saabuun iyo biyo, waxaad isticmaali kartaa alkolada infection tirista. Ilaali nadaafadda qunfaca. Dadka kale kala fogow qunfaca ama hindhisada. Ku qunfac istiraasho aad markaa tuuraysid. Kadibna dhaq gacmahaaga. Haddii aanad haysanin istiraasho, waxaa habboon inaad ku qunfacdid laabka xusulkaaga. Haddii aad u malaynayso inaad qaaday cudurka. Haddii aad tuhmaysid inaad qaaday cudurka, waa inaad joogtid guriga. Haddii aad u baahan tahay gargaar caafimaad, marka hore dhakhtarkaaga ka wac taleefanka. Haddii ay socon weydo, wac isbitaalka degdega ah oo taleefankiisu yahay 11 617. La soco wararka cusub. Dawladdu waxay dhammaan dadka degan Norway ka codsanaysaa inay akhriyaan macluumaadka iyo talooyinka muhiimka ah ee ku saabsan fayruska corona oo laga helayo shabakadda FHI.no iyo helsenorge.no. Markasta waxaa imanaya talooyin cusub. Macluumaadku waxay ku qoran yihiin af Norweji iyo Ingiriisi. Haddii ay kugu adkaato in aad fahantid macluumaadka, waxaanu kaa codsanaynaa inaad raadsatid qof aad taqaanid oo ku caawiya.